فيسبوك أما سوشيال ميديا هنو استعمالنا لما أنت ندين أنت نوكا شوكتا إنه فرنا سوشيال ميديا فيسبوك هل نيستفيد بأن جوده هاري ماني سكوح إيش شو كليه ما أنت لقى عليه وايو ضدك إنفلونسر ريسك فلو ريسك عليه ومدة كوحر أنت هاي ما هذا اللي برته حرفة قارية قاناني سوق بنيه حتى ورها دوي هاي ورك لفتي سوا حرفة اللي برته يسلو قد بنيه نارتيف كي يقف وحوش شقينه هذيتها هاي أقوم هذيتها هاي مددالة هذيتها maxay keentay marka wixii bayna noqoto 20 qof oo milyan la socda oo isku hal wax ka hadlaya ma aha isku hal wax loo dhiibayna ka hadlaan ina keento maxay dib keenaysaa taasi waxay keenaysaa mushkilada hadaan sheegay in leenahay dhamaanteen in kamiga jooga hawdka jooga inta halkan kooda jirta qofka suuqa ka xamaalanaya the same news bayna maanta hayna hal warban ka sheekanaan ma kala doonaan karo one news item nation man maalinta waxaas ma laga hadlay waa mushkilad weyn waa ta keentay maanta in mushkiladaha ay keenis marka ama dhibta ay leedahay qof aan xirfad lahayn oo aan noqday waxay keenaysaa in hab fikirka guud ee dadka hab fikirka waxa makhaayad laga sheekeynayo dhan waxa guri kasta laga warramayo information kan qodanayna ee maskaxdeena galaya in ogaana ma inaan ogaanay isku mid buu noqday waxaan dilaysaa marka taasi hab fikirkii ummadda iyo kala duwanaanshihi bini'aadamku macnaha kula waxay keenaysaa in dadku ay u baratamaan sida ninka dhalinyarada aan idin sheegay uu dhaxdo waxaan rabaa in aan noqdo waxaan kale laga sheekeynayo waxaan ku bariisanay meel caan oo aan ku soo qaato maalin kasta lacagteeda in marka ay dhiirigeliso in aan qofku xirfad baranina la yiraahdo qaaqleynta iyo afku xooglanimadaas loo shaqo tagay taasoo koskeeda iyo qiimaha aynu bixinayna aan hadda ogaan karin laakiin muddo kadib 10 sano 20 sano kadib ay miraheedu soo bixi doonaan oo iyaduna halis weyn iyo ugu dambeyn in ummadda iyo hab fikirkeeda guud iyo cid role modelka oo ah iyo cid ay ku xiran tahay iyo cid ay warka ka qaadanayso iyo cid ay daawadaan iyo cid iska dhaxarkaya ay noqoto dadka aynu sheegayneen leenahay wax loogu soo hagaagay iyo xirfad ay leeyihiin ma jirto taasoo markaa mustaqbalka ummadda iyo bulshadana halis weyn ku ah xalku muxuu noqon karaa marka sidee baa loo soo reclaim garan karaa ama dib loogu soo celin karaa meesha lagama saari karo waa xaqiiqo laakiin sidee loo soo celin karaa qiimihii in la qiimeeyo la value gareeyo aqoonta la qiimeeyo xirfad qofku inuu barto la qiimeeyo qofku inuu caan han noqdaba wax gaar ah xirfad gaar ah oo caan ku noqdo oo master grade ana caan ku noqon dadka la socda ee flow gareynaya oo inta badan siday ku heleen ay ahayd wado wasakh badan oo laga yaabo in maaragtay ama reer lacag ha noqoto ama kuwa dharka soo dhigta ha noqoto ama qof yaani wax aan akhlaaqiyadka iyo maaragtay dhaqanka ummadda aan la jaan qaadin keenay ha noqoto sababta doonaha ku yimaada in maaragtay qof madnaan aan ku noqday aan lagu daba filan sida looga bixi kara waxay la tahay inaan ogaano horta inay mushkilad tahay qofku inuu iska caan noqdo kalidii isagoo wax ku dhex jiray waayo qofka isagoo xirfad iyo wax gaar ah caan ku noqon million follower ama kumanaan follower ay la socdaan wuxuu ku dambeeyaa ama aynu aragnayba waxa la oran jiray dadka ama dumarka jirkooda ka ganacsado qof wajigiisa ka ganacsada inuu noqdo waanu ka duwanaan birta magaalada laga taago ee la xaysiiska ee la suro wixii la doono kama duwanaan waa qofkii ma jiro wax value iyo principle iyo aragti iyo xirfad iyo wax lagu bartay oo ka shaqeynaya content uu meesha soo geliyo maahay wuxuu keenayaa marka wax kasta oo wax lagu dhiibay soo geliyo okay waxa marka iyaduna taasi ay keenaysaa marka waxaan flow risk ama dadkii la socda qofku waxay ka rabaan content-kiina qofkii maahay taasaa keenaysa marka inuu wax badan uu dhexda baasho oo birta wax la suranayo kale uu noqdo
حقيقة كلنا وحوي تاني هوس لقى حريقة مدة ذكر من عن من نقول كران يعني هو حقيقة ده مدة من رأي ساعة عن نمو وحصور تقلمها خديبة للرادين هنا وقفكم الرادين هنا وحم مهمة إن يشرتوا وحجارة أما حرفة جارة أما سكتر جارة وربوق في كاسين وعانكم نقول سيدو عانكم قلنا غني أنا وحوي شغل كبلان ضد كسكتر كل شيء أي قبطان ينوقف كاس قبطان sida wariyaasha adduunka in gaar ay caan u sii tahay sida dadka kubadooda ciyaara in gaar ay caan u sii tahay sida dadka akademiga ah in gaar ay caan u sii tahay sida dadka politics ku jira in gaar ay caan u sii tahay waxa aad ka shaqeynayso extra work dadka kula midka ah ay ku jiraan inuu qofku qabto oo xirfadda iyo maaragtay ka mid dhalinteeda iyo horumarinteeda inuu sameeyo ayaa ka caawinaysa halka marka sidee loo challenge gareyn karaa maaragtay banaanaanta ama meesha inaanay jirin ama ay aad u yar tahay ilaa heer aan la arki karin cidin dheergarada ama caan ku ah xirfad iyo aqoon gaar waxa la tago door dadka in dheergaradka ah ay baneeyeen oo in dheergaradka ama dhakhtar ha noqdo ama engineer ha noqdo ama chemist ha noqdo ama saxafi ha noqdo ama siyaasi ha noqdo yani qofku wuxuu doonaa ku takhasusay aqoonta iyo xirfadda uu leeyahay haddii ay ku koobnaato ay ku eegaato oo kaliya inuu ku bariiseeyo soo dhaafi waayo noloshiisa shakhsiga wuxuu bixin doonaa price aanay lacagta uu personal u shaqaysanayaa hadhow jarin marka in horta qofka ama dadka indheergaradka ay qaataan doorkii ahaa inay iyagoo isticmaalaya digital media isku xidhankan ay waqti gaar ah u sameeyaan content iyo xog xirfadda iyo aqoonta ay leeyihiin ay kusoo gudbiyaan haba yaraatay marka qaar dadka aynu dhaliilayno aan leenahay flowers badan bay leeyihiin qaarkood waxay ku odhanayaan cid aan waraystaaban waayo meeshaan ku buuxiyo markaa kaa qaylinayaan ku buuxinay macnaheedu waxa wey markaa doorkii indheergaradka ama aqoon-yahanka iyo dadka aan leenahay xirfada ku takhasusan baa gaabis weyna ku jira marka in lagu dadaalo qof kasta oo mas-uuliyad iskii ah isa saaro boqol qofna ha gaadhee content-kaagaas inaad samaysid xirfadaada wax ku saabsan xog iyo content iyo maaragtay social media aad ku jirto uu noqdo presence ku jiro taasi waxay keeni kartaa markaa for the long run inay jiri karaan qofkii social media isticmaalaya inuu helo alternative wax kale oo waxa aynu dhalinayno kaga duwan laakiin haddaanu alternative jirin qofku wuxuu ku khasban yahay waxaa yaalla markaa inuu la falgalo uu ka sheekeeyo waxaa ka mid a markaa iyaduna in la sameeyo madalo tan aynu caaw joogno kale ka mid kulmada sidan oo kale la isugu imanayo wax gaar oo laga yaabo intayna halkan isugu timi ama intaanayna soo gaadhayna daawanaysa ay xiiseynaysaa jira kuwaasoo kale markay bataan ama joogtoobaan waxay keenaysaa markaa content iyo maaragtay xog taa aynu dhaliilayno ama reero isu jawaabaya sacaaya ha noqoto ama dad soo qaaqaawinaya ha noqoto ama dad waxaan maaragtay akhlaaqiyaadka ku habboonayn caan ku noqonaya ha noqotee wax challenge garaya haba yaraadee laakiin koraya inuu yimaado ama podcast samaysa ha noqoto ama website-kaas geesko kale qoraalka lagu qoray ha noqoto ama doodo la abaabulaya ha noqoto ama ishiyada kale laga hadlaya ha noqoto taas marka wadoorka aan isleeyahay dheergaradku way qaadan karaan in la soo celiyo markaa qiimeyntii iyo aqoontu maaragtay doorkii ay lahayd alternative-ka la abuuro kale isna waxaa jira mid kale oo dowladeed ama dowlad kale oo dowladdu guud ahaan iyo qaranku uu qaadanayo si loo xaqiijiyo markaa soo celintan oo heer dadaal shakhsi oo keliya mid ku iman kartan baa taas oo ay ka mid tahay hadda waxaan arkay shalay China oo kale waxay soo saareen siyaasad sheegaysa qofka influencer-ka ee dadka badan ku xidhan yihiin inaanu ka hadli karin waxaanu aqoon u lahayn milyan baa ila socdo wax walba ka hadlaya inaanay ahayn oo milyan baa kula socdo maxaad baratay waxaad baratay ka hadal laga yaabaa in la yiraahdo too extreme laakiin ugu yaraan waa siyaasad dowladeed oo xakameynaysa maaragtay dadkii ama isku dirka iyo hate speech-ka ka hadlay ama macno la'aanta ka sheekeynayay in la controlo la yareeyo dowladuhu inay siyaasad caynkaas oo kale ah ugu yaraan la controlayo waxay doontaa ha noqotee inay la timaado mushkilad horta u aragto laba
إن أنا يجوا استعمالهم ضد كان ينقعونين قف شلا يودن خيرا عاي أما واحد مدة يود الشركة ذي يشرتان كده كسر شيء كشكيني هذا حفيز وسارة ما حفيز من احتوية ما حفيز حزب اللوجية رول ليه إنه بايور معناه ذو حوي واحد يرجع للسواحة وكان لي يقف قاس مركا دولة يوجد عن غرق إن أنا يعني أنا السنين أنا كنت أحمل منه الله لكن فرصة عن ماذا اللي وقف يدين كره الفقوقه لا أنا أركب قف عن كل نقضي وحان هين وح أمتك وهبوا إن دولة أي أبورتو شقوين dadka ay ku mashquulaan waa dhalinyarada qaarkood waxay kula waxaan qabtay ma jirto markaa waa inaan horta kala kacsado page-kiisu ku kala kacsanaya xirfadba male markaa tiktok aad geli wax hal maanta hees kaliya ba shidanba taas unba qofka weji soo saaranaysa uu fiiso facebook baad iman waa same news feed waxaas una si kala koobi karaysa marka xirfado dadku haday yeelan lahaayeen dawladdu ay xoog saar lahayd in macaahid iyo maaragtay kulliyado tababar xirfadaha sameyn lahaa qof xirfad loo shaqeystaa TikTok page ma kama nacna عليه marka maxaa keenay in qofkii ka dhex raadiyo nolol marka in taa lafteeduna for the long run ay noqon karto waxyaalaha xalinaya iyo ugu dambeyn maaragtay in la xoojiyo ama la garab galo intellectualska ama dadka aqoon-yahanka ah dawladdu ay maaragtay garab siiyaan ama institutions ha noqdaan ama ha noqdaan dadka individualska ah ee maaragtay ka hadla arrimaha ummadda mushkiladaheeda xalinteeda iyo horumarinteeda iyo aqoon maaragtay xoojinta aqoonta la halmaala ugu dambeyn waxa jira nin la yiraahdo daarad Suudaan baa waxa la yiri maalin dhexda ahayd waa nin fanaan baa ku yiri labadu waa carab in carabaydu waa carabta ana ugu caansana inaad caantaad ismoodaysaayee bal fagaaraha dad ma ku balansanaa wuxuu ku yiri maye gabadh buu tilmaamay markaa pornographic matir sulmi aanu kula tartari maayo adiga iyo taa kiina dad badan u soo baxaan aynu eegnaa iyada bal la qabso mid wuxuu meemeeyay anigu laa tartami maayo marka wuxuu hadii qiimaha marka aan ku cabirayna dadka ay tahay flow risk gabadha aad leedahay la tartami maayo ayay noogu qiimo badnaan lahayd taa macnaheedu ay tahay flow risk value ma sheegaan markasta astaano ma aha cid kasto flow risk badan leh inay qiimo iyo maaragtay macno ay ummadda u leedahay ay ku tahay waxa iman kara ama laga yaabo inta badan inay noqon karto qofan ama value iyo principles iyo waxaan sheegayno aan lahayn inuu aan noqon karo intaasan ku soo koobaya hadalka waan badiyaan malaynaya wixii kale wada sheekaysiga iyo inaynu insha Allah discussion ka furnaan ka dhigi doonaa aad iyo aad u mahadsantiin